kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warka subax ee Halgan Media aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maxaad kala socotaa daawada wasiirka kaliya ee diiday inuu ka qayb galo shirka golaha wasiirada tan iyo xilka qaadistii Khayre madasha xisbiyada qaran oo ay bixin cusub u sameysay dawladda Farmaajo dawladda warka saartay howlgal ka dhacay Jubbada Hoose iyo dalkii ugu horeeyay Carbeed oo sameysay warshad hubka nuclear ka soo saarta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka subax ee Halgan Media fadlan daawade hadii aad nagu cusub tahay subscribe leh riix gambalal saadoo wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markana u diyaar garooba qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran maxaad kala socotaa daawade wasiirka kaliya ee diiday inuu ka qayb galo shirka golaha wasiirada tan iyo markii xilka la qaaday Khayre wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa marna ka soo muuqan shirka golaha wasiirada Soomaaliya tan iyo markii kalsoonida laga noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sida uu ogaaday Halgan Media warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riitaankii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan waa wasiirka kaliya ee shirka diiday marka laga reebo wasiirro farsamooyin iyo howlo kale uga baaqday xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wasiirku madaxda qaranka u sheegay inuusan ku qanacsanayn qaabkii loo riday xukuumadii hore iyo sida ay hadda wax u wado villa Soomaaliya goobjoogayaal ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in qof ka socday wasaaradda amniga uusan goobjoog ka ahayn munaasabadii lagu furayay macadka sare ee daraasadka amniga oo shalay lagu daafuray magaalada Muqdisho xilwan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sidoo kale kamid ahaa xubnihii sida weyn uga soo horjeeday xilka qaadistii Xasan Cali Khayre waxa uuna ka soo muuqday kaamirada isagoo buuq ka sameynaya fadhigii baarlamaanka waxa uu ahaa wasiirka kaliya ee ka tirsan xukuumadda Khayre ee si shaacsan u diiday xilka qaadista Khayre kuna dhiiraday inuu mowqifkiisa cadeeyo inkastoo ay jireen wasiiro ku fakar ahaa balse aan mowqifkooda banaanka soo dhigin villa Soomaaliya ayaa aad uga carootay tallaabada Ducaale waxaana maalmo kadib xilka qaadistii Khayre soo baxay warar sheegay in Ducaale xilka laga qaadayo waxayna u badan tahay inuusan soo gelin golaha wasiirada cusub ee la soo dhisayo marka la magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxaa lagu tiriyaa in uu ahaa saaxiibkii ugu dhawaa ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Xasan Cali Khayre wuxuuna kamid yahay wasiirro fara ku tiris ah oo aan la bedelin tan iyo markii uu xafiiska yimid Xasan Cali Khayre madasha xisbiyada qaran ayaa erebixin cusub u sameysay dawladda madaxweyne Farmaajo madasha xisbiyada qaran ayaa erebixin cajiib ah u sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya ay hogaamiyay madaxweyne Farmaajo oo muddaxileedkoodu uu ka harsan yahay bilooyin dhowr ah madasha ayaa xukuumadda Farmaajo ku sheegtay mid xilgaarsiineed taas oo ay ku micneysay inaysan xilligan lahayn awood sharciyadeed oo ay ku qaadan karto go'aano masiiri ah dawladda Farmaajo ayaa muddaxileedkeedii waxaa ka hadhay dhowr bilood taasi oo kaga eg horaanta bisha February ee sanadka 2022 villa Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in ay muddooyinkii dambe waday qorshe muddo kororsiya kaas oo ay si cad uga hor imaanayeen heshiiskii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo weliba baaqilii kala duwanaa ee saamilada siyaasadda ee Soomaaliya qorshaha villa Soomaaliya ee muddo kororsiga ayaa dhawaan galaaftay xilkii ra'iisul wasaare Khayre oo si lama filaan ah ay xilka uga tuureen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo gacan ka helay madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ayaa isku mari waayay arrimaha doorashooyinka taas oo ugu dambeyntiina daaqada ka saartay xukuumadii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dawladda Farmaajo ayaa wajahaysa cadaadisyo badan oo dhanka beesha caalamka ah iyo saamilada siyaasadda kaasi oo aan la ogeyn in uu si dhab ah u horseedi doono inuu meesha ka baxo rabitaankiisii muddo kororsiga dawladda ayaa war ka saartay howlgal ka dhacay gobolka Jubbada Hoose howlgalkani oo ahaa mid ka dhan ah xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab waxay ka fuliyeen deegaanka kooban oo hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose
taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka ee danaba gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa halgan media u sheegay in howlgalka ay ku dileen sargaal ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaa maaliyadda gobolka Jubbada Hoose kaasi oo lagu magacaabo Cali Garweyne iyo 4 kamid ah ilaaladiisa. taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidanka sidoo kale ay wadada u dhaxaysa Jamaama iyo Kismaayo ka soo saareen miinooyin ay wadada galiyeen Al-Shabaab kuwaas oo doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka isticmaala wadadaasi sida uu hadalka u dhigay. gaashaanle Ismaaciil ayaa sheegay in howlgalka weli uu socdo isla markaana ujeedkiisu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka. maxaa looga hadlayaa kulanka golaha shacabka maanta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho? xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 2020 waxa ay kulankoodii caadiga ahaa ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. ajandaha kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa ah sii wadida dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020 iyo ka doodista iyo u codeyn wax ka bedelka sharciga number 25 qodobkiisa 10aad ee muddo-xileedka guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wargeliyay in maanta uu jiro kulanka baarlamaanka isla markaana ay soo xaadiraan si uu qabsoomo ajandayaasha laga doodayana ay hirgalaan. dhinaca kalena siyaasi la yiraahdo Farxaan Cali Axmed ayaa ku soo biiray siyaasiyiinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudbiyay sooyaalkooda nololeed si loogu magacaabo xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalkan. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad oo saacadihii ugu dambeeyay ay hadal hayntiisu ay ku badnayd caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Farxaan waxa uu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. waxbarashadiisa heer jaamacadeed wuxuu ku soo qaatay dalka boqortooyada Ingiriiska halkaas oo ku qaatay shahaadada koobaad ee Bachelor Public Policy and Management iyo shahaadada labaad ee Masterka oo uu soo bartay International Conflict. horey waxa uu uga soo shaqeeyay hay'adaha samafalka, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dawladda. hadda waa qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya. waa qabiir xagga diblomaasiyadda oo muddo ka soo shaqeynayay qaramada midoobay iyo midowga Afrika isla markaana la aaminsan yahay inuu ka soo bixi karo xilka ra'iisul wasaarenimada ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina dalkii ugu horeeyay oo Carbeed ayaa yeeshay warshad nuclear ka soo saarta. dalka Istaga Imaaraadka Carabta ayaa howlgeliyay warshadii ugu horeysay ee nuclear-ka oo uu yeeshay dal Carab ah oo ku yaala gacanka Carbeed. tayeenta quwadda nuclear-ka waa 4 qaybood ka kooban. qaybtii ugu horeysay waxaa laga bilaabay warshada Baraka iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyad uu sameeyay dalka Kuuriyada Koonfureed. warshada ayaa la filayay in ay si rasmi ah ay howlaheeda u bilowdo 2017 balse waxaa marar badan ku yimid dib u dhac la xiriiray ammaanka warshada. dalka Istaga Imaaraadka Carabta oo saliida hodan ku ah waxa ay doonaysaa in warshadan in ay 3 meelood meel baahida dhinaca tamarta uu dalkaasi u baahan yahay in ay u daboosho. 2 toddobaad ka horna Istaga Imaaraadka Carabta waxay hawada sare u direen dayax gacmeedkiisii heerkiisu sareeyo oo loo adeegsanayo cilmi baarista taas oo dalkaasi ka dhigtay dalkii ugu horeeyay oo ka tirsan Khaliijka oo tallaabadaasi qaada. Istaga Imaaraadka miisaaniyadda ugu badan ee tamarta wixii hadda ka horeeyay wuxuu ku bixin jiray tamar laga helo qorraxda balse hadda waa uu weecinayaa. khubarada tamarta qaarkood waxay su'aal gelinayaan suuragalnimada warshadaasi loogu magac daray Baraka maadaama tamarta laga helo qorraxda uu yahay mid nadiif ah oo raqiis ah oo macno badan u sameynaya gobol ay ka taagan yihiin xiisado siyaasadeed iyo kuwa argagixiso. sanadkii hore warshada Baraka ee nuclear-ka waxay qadar ku tilmaamtay qatar muuqata oo ku soo fool leh nabadda iyo deegaanka gobolka. guud ahaanna daawade waa naga inta warka subax ee halgan media tan iyo kulan dambe nabadgelyo.